markaa waxaan ku boorinayaa madaxda sharafta leh isi soo raaco calimasaarka madaxweyne xasan sheekh ka soo qayb gala gogosha annaga dhignay haddaanu jaaliyadda nahay haddaad u baahataan diyaarado khaas ah inuu soo gulbiya waan idin soo direynaa roog cas iyo meeqaam sare iyo quluub qushuuci ku dheehan tahay baana laydinku soo dhaweynayaa dadka reer banaadir iyo Soomaali koonfureed way idin jecel yihiin Soomaaliland way jecel yihiin anigoo ku hadlaya afka dalada midnimo ay ku midaysan yihiin bulshada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan halkan aan maanta baaq aan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo loo madlan yahay maalinta caleemasaarkiisa 9ka bisha waxaan madaxweynaha halkan aan codsi anigoo ku hadlaya afka bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Banaadir oo ay aan ahay gudoomiyahooda madaxweynaha waxaan si xushmad iyo qadarin mudan aan uga codsanaynaa in uu martiqaad rasmi ah oo meeqaamkiisu la mid yahay madaxda geeska Afrika sida Abiy Ahmed Asiyaas Afwarqi Ismaaciil Cumar Geelle martiqaad la mid ah inuu ku soo martiqaado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waliba asxaabtiisa ama asxaabta siyaasadda Soomaaliland mucaaradka iyo muxaafidba si aanay u noqon mid ayagu gudahooda isku dhaliilaan waxaan madaxweynaha ka codsan lahayn si uu halku dhigiisii ahaa Soomaali heshiis ah caalamka la heshiis ah iyo khudbadiisii hadal jeedinta ajadiisa koobaad ay ahayd wada hadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya inay noqdaan halkii hore ay u taagnayd xilligu madaxweynaha teeramkiisii hore inuu ka sii anba qaado mar walba uu ku adkeynayay carabka qodobada ugu muhiimsan ee siyaasadiisa iyo ajandadiisa siyaasadeed ay kow ka ahayd si uu midho dhal u noqdo loona qabiyo tiro qabiyo ninkii leebaa dhammaystira sidoo halku dhigaagu ahaa mudane madaxweyne waxaan qabnaa aan u aragnaa oo aanu ka aaminsanahay inaad tahay oday hayin ah oday Soomaaliyeed ruugacada ay ka go'an tahay ay ka dhab tahay Soomaali heshiisa teeramkan labaad ilaahay mar labaad uu ku siiyay inta ka bacdi waxaan iyagana baaq aan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo asxaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii iyaguna waxay og yihiin waxaan dadkuna ay wada og yihiin annaguna muddadii aanu halkan Soomaaliya aan ku sugnayn iyo gobolka Banaadir daraasad iyo falanqayn aan ku lafagurnay ku ogaanay koob iyo 30 sanadood اعترافك يا أقونسي قاعد كره هذه الناس دولتها الشيشية إذا نوت سوق قاتنا أنا قلنا وان حقيقة سنة كلية وحولية لا ميلر نجمتشرو وحولية لا ساد وقفها إذا استان تارم كا أفرت سنوات مدحلات كمدحوني حسن شيخ أن قضي سومالي لان شعل وناجي شعل رنتي لصعتان كلوريج يدو صنت كهرن لوديدي نلقوه رستاجي 18 مين هلكن وجود بالدقنو إن صنت كان سوق جوشي سيل لبا أما صدح معلومات كبعدي سي مدرير سومالي لان أي وجود بالدقتي حنا هاي الحفلة دي وصامين تيميسان كبدن أي كرد على الدنيا تاس waxay muujinaysaa halkuu inaga taagan yahay Chinese soo ka faa'iideystaan walaalayaal madaxda sharafta leh madaxweynahayaga waxaan leenahay traafkan meel kale iyo dawladda shaqo ka raadinaysaan abid helimaysaan idina wada ogtaan anaguna waan ognahay waxay la yaalaan walaalaheen raguna walaal wuxuu ku dhaamo malaha badii 60kii jiilkii ka sii horeeyay ay ku keeneen midnimada inaad saad nooga dabaalin lahaydeen mustaqbalkayga uga dabaalan lahayn ama midnimo ku keeni lahaydeen waarta oo cadaalad ku dhisan iyo kala go aqoonsi caalami inaan helno jiilka naga dambeeya iyo kuwa ka sii dambeeyaba si ay u helaan mustaqbal oo aanay waqtiga inta leeg
ee ruuc qarniga ka badan nus qarniga ku dhow inaanay mar dambe aynu naga lumin markaa waxaan ku boorinayaa madaxda ee sharafta leh isi soo raaco calimasaarka madaxweyne xasan sheekh ka soo qayb gala gogosha annaga dhignay haddaanu jaaliyadda nahay haddaad u baahataan diyaarado khaas ah inuu soo gulbiya waan idin soo direynaa roog cas iyo meeqaam sare iyo quluub qushuuci ku dheehan tahay baana laydinku soo dhaweynayaa dadka reer banaadir iyo Soomaali koonfureed way idin jecel yihiin Soomaaliland way jecel yihiin